waxaa jirta qayb uguba oo la yiraahdo maluug oo aan horay u jirin oo rag badan oo taariikhda ableeyay sida ay sheegeen la aaminsan yahay in geela furul uu ku soo daray garta geela gob ka waran baa layidhi oo gobu waa 5 buu yiri 5 weeye gobu waa 7 oo waa sooriyo maamaha kala jirtay oo uu yiri laf dhuux leh iyo laba dhagax waa la isla waayay isagoo qolo u qusgoynaya waxa kala u hanqal taagaysa waxa meesha oolin kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena taxaraha sooyaalka Soomaaliyeed waxa caawa marti noogu ah barnaamijkeena qoraa iyo muxafid afka iyo dhaqanka arooriya taariikhyahan iyo kayd ummadeed waa ugaas nuur xaaji daahir oo laga martiyay suugaanta Soomaaliyeed aadna ugu xeel dheer inagoo caawa aqoontiisa gaawaha kaga buuxsanayna su'aalo badanna ka weydiin doona bal aan ugu horeyntii ugaaska ku soo dhaweeyo madasha Balehawd Cabdullaahi waad mahadsantahay waana ku dhawahay madashaadan sharafan mar kalena waa kaaga mahadcelinaya inaynu caawa kulmayno muddo dheer ka bacdi waxaynu ku ballansanahay ugaaska bal inaynu dhowr barnaamij ka qabanno haddii eebba inagu simo barnaamijyadaasi oo la xiriira dhaqanka isirka iyo hidaha Soomaaliyeed hase yeeshee caawa bal waxaynu ka karorsan doonaa in aad Soomaalida dhexdeeda suugaantiisu caan uga tahay kol walbana orahyadiisa iyo halqabashadiisa ku lamaan yihiin carabka bulshada Soomaaliyeed waa Allah u naxariistee abwaankii gaasa baxay ee Geela Liibaan Cabdille oo ku naanaysnaa Geela Faruur ugu horeyn bal nuurow taariikh kooban inaga sii abwaan Geele nin noocee ayuu ahaa sidoo kale halkii uu ku dhashay iyo halkii uu ku kacaamayba Cabdullaahi oo ninka la oran jiray Geela Liibaan Cabdille Maxamed oo dadka qaarna ay u yaqaaniin xilligiisii hore oo dhalinyarada ahaa Maxamed Liibaan Cabdille balse gadaalkii Geela Faruur kaga caan baxay waxa uu ahaa nin marka lala aqriyo bulshadii iyo waqtigii uu noolaa sida qorraxda oo kale uga soo shacbaxay oo nin mucjiso ah aad iyo aad wararkiisu ay u gaareen carri idag oo dagalkii iyo dudadii asagu ku noolaaba warkiisu ka talaabay buu ahaa haddaynu qofka uu ahaa aynu mir iyo laba ka tilmaano waxaan oran karaynaa wuxuu ahaa nin baaliq ah cabqari ah nin qalwada xigmadda eebe in badan uga sadburiyay oo la oran karo wuxuu ahaa raahib gar aqoon ah oo cilmiga baaliqada iyo aftahamada eebe in badan isaga uga sadburiyay buu ahaa dhalashadiisii Geela Liibaan waxa uu ku dhashay Xamin gaar ahaan ceelka Dhuusamareebeed iyo dhulka uu galay dabayaaqadii qarnigii 19aad ama markaynu si kala u dhigno waqti ku aadan 1890kii waxa uu ku kacaamay oo barbaarnimadiisii ku soo qaatay dhulkii doollo hawd iyo xiriir dhudub oo ay reer abtigi yaaleen gadaalkii dambe ayuu u soo wareegay reer Turki iyo dhulkii ay ku dhaqnaayeen waxa uu si weyn ugu bulaalay oo looga bartay oo lagu tamadiyay oo loogu galay ceel gaab xibin iyo ceel cad Geele taariikhdiisa dhalasheed midiisa korniimo iyo dhulalkii uu isaga dambeeyayba Cabdallah intaasaan ka oran karaynaa intaasi inoogu filan aqoon barbaarintii iyo meeshii uu ku dhashayba waxaan kaloo ku weydiiyay ugaas goortii uu shaac baxay Geela Liibaan Cabdille Cabdallah Geela markii la yiraahdo shaac bixidiisa laba siba uu u shaac baxa qolyahan carabta waxay ku maahmaahaan waqti adag nin adag buu dhalaa shaac bixidiisa labaan u kala saaraynaayo dhalinyaranimadiisa iyo waqtigii uu reer abtiga ku noolaana siba u shaac baxa markii uu Turki u soo wareegay oo deegaanadii Turki ku dhaqnaa soo dhaxgalayna waa markii ugu badnayd oo magaciisu uu carrigaba ka talaabay markii uu xagga iyo doollo iyo xiriir dhudub joogay waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo alaaba geedka reer abtigi ama tolka hooyadii ay ku shiraan jooga nin waayeelka ka agdhow nin alaaba aan dadka ku jiilka ah aan raacinay dadka waaweyn wax ku darsada sheekooyin badan baa laga soo wariyay oo intuu xagga iyo abtiyaasha joogay ka caan baxay oo
duulduul ku soo gaaray xagga iyo reer Turki. Waxaa jirta sheeko caan oo adigu baad maqashay oo aan caawaba iska warsanaynay oo geyga aad ugu faaftay. Waxaa la sheegaa maalin isagoo fadhiya golihii reer abtigii iyo geedkii damalka ahaa ee reerku ku shidi jiray. 9 oday oo suldaankii reerkuna ku jiro ay golaha la fadhiyaan. Waxaa soo galay 4 hablood. Habluhu deegaanka uma dhalan, waa habla sadcaal ah. Geedkii odayaashu fadhiyeen bayna dacalkooda ka soo galeen. Raggii baa weydiiyo alaaba caado ma ahaan jirin dumarku geedka shirka iyo meesha dudada odayaashu ay joogaan inay yimaadaan. Waa la weydiiyo maxaad haydeen baa la yiri waxay dhaheen waxaanu nahay gabdho heeran oo soo heermay in kelmadda aad loo fahmayaan qiyaasayaa. haddana kaaga daran Cabdallah gabdhuhu heeran ha ahaadaan haddana waxay ahaayeen heeran carmala ama garooba. Raggii meesha golaha fadhiyay baa fariiday oo waa la warsaday oo ninkii suldaanka ahaa baa yiri bal ii warramo oo maxaad u soo heeranteen oo maxaa guurkiinii hore maxaad inoo leedihiin. mid baa ku hormartoo tiri anigu waa la isoo furay oo waxaa lagu soo furay hunguri badni. tii kalaa ka daba qaadatay oo tiri aniga waxaa leeyahay caanya tahay oo xoog jiriirada reerka xooggaaga iyo xiribtaada waa kuma tiirsana. tii saddexaadna waxay tiri madax adayg yaa ninkayga isku seegna. tii afraad baa ka daba qaadatay oo tiri anigana waxaa lagu soo furo odaygii baa shaki galay xagga gogash iyo ituumay afartayaduba sidaasaana la ku soo furay oo dad reerkan nama dhaafsanin oo waxaynu doonaynaa inaan gayaankeennagi mar kale ka helno dudada ay inidka odayaasha u tijin. raggii talaa ku adkaatay gabar heerana la galay oo xeer bay lahayd. haddii la cayrshana xeer bay lahayd, haddii la soo dhaweeyana xeer bay lahayd. laakiin gabar heerana oo garooba oo haddana guurarkeedii hore furnikoodu ay in sababsadeen xaajo adag bay noqotay. raggii tala ku adkaatay yeelana asagoo inan yara meesha fadhiyo inta kor madaxa u qaaday buu yiri suldaanow. suldaanka marka abti ahaan ugu aadanaa gabdhaha 3 raggoodii cidda waa joogay ma ku daraysaa buu. suldaankii oo nabar ka soo fuqay baa yiri oo abti maxay yihiin raggoodu. wuxuu yiri gabadha guriga lagu soo furay meelaan waxba oolin bay ka timid oo meel gabar waxay cuntay lagu tumay waa meel cayr ah oo maran nin loo leh oo waraasi loo aadiyo boqboqo hareeraha ka dhiga hadduu reerka joogo wakaan ninkeedii ma ku daraysaa. suldaankii inta qoslay buu yiri waa garta tan lagu soo furay buu yiri ciidan xumada iyo xoog jaliilada. nin 10 wiil leh oo isna xoog leh oo 10ka wiil ay reerka una dhaamiyaan raraanna una furaanna una oodaanna wakaan ninkeedii kaas xoog uma baahnay kaas wiilal ka dhalahaya ma ku daraysaa buu. midaan gogasha lagu soo furay oo la tuhmay nin doobo ari badan haysta oo ariga raacsada oo 5 tiro ariga ku dhex sidayo maalinkaas dhan ay la maalinsa waasho. kaasa ninkeedii ma ku daraysaa naag nin u baahatay waa naag nasana wakaan ninkeedii ma ku daraysaa buu. saddexdaba waa ku darhayaa tan afraad igu darbi. tan afraad dagaalayg baa lagu soo furay nin uma hayo iyadoo nin ha samaysato. waa sheekada aan baxday markii sheekada gilladii baaro waa sheekadii xagga abtiyaasha intuu joogay. sheekooyin badan oo ka dhacay taasaan ka soo xulanaynaa oo ka soo qaadanaynaa. markii uu soo wareegay oo Cabdallah reer abtigii uu ama reer aabihii uu soo dhaxgalay waxay ahayd waqti aad u adag. waqti ay adkeyd nin walba inuu caan baxo yahayd. waa waqti ku aadan 1920aadkii. waa waqti ummadda Soomaaliyeed oo dhan u adkeyd. waa waqtigii dowladda Daraawiish sheegay in Cabdillah Xasan ay meesha ka baxday. waa waqtigii xoogagii shisheeye dhulka inta qaybsadeen sandanadihii yaryaraa ee Soomaalidu ay lahaayeen cagta la marshay. marka qolyahan asagu ka dhashay oo Mareyxaanka ah dhibaatada Soomaalida haysatay dhibaato ka sii duwan bay haysatay. 3 dhibaato haysato qol in Cabdillah Xasan bay raacdo oo ciidan noqoto. in Cabdillah Xasan markuu jabay oo Turkiga ogaadeen iyo Webi Shabeelle ka gudbay iyagii ma soo noqon. wixii dhintay mooyee wixii kale meelahaas lagu qaybsado. waxaana ina keenay diig bay la joogeen. waxna waa guureen oo waliba jifooyinka hoos asagoo ka dhashay oo dadka u xigay waa guureen oo koonfur iyo labada webi bay dhanka galbeed uga tallaabeen.
qolyihii ina Kennedy ku soo haray oo markaa iyagu roonaa yaa Talyaanigu inta duulay buu ina Kennedy iyo carruurtiisa iyo familkiisa inta qafaasho markab saartay iyagii baa meesha ku soo haray kadibna nin raacaa la waayay halkaa dhibaato weyn baa ka dhacday raggii waxgaradkaayo Mareexaan yaa is aruursaday geelle raggii soo jeediyay baa fikraddii ahayd sababta in la is aruuriyo oo dadka maqan iyo marasta la aruuriyo oo Mareexaan taladiisa dib loo mideeyo raggii marka arrintaas guntiga u xirtay buu kamid ahay weliba waxaa la sheegaa falsafada in aan lagu milmin dhacdooyinkii marka carrada ka socday dadkii maatada ahaa la aruuriyo oo nin walba wuxuu heli karaa la aruuriyo reerka taladiisa dib loo mideeyo oo marasta la isku keeno raggii lafdhabarta u ahaa buu kamid ahaa isagoo weliba xilliga aad u dayar si wanaagsan waxaa dhacday nin Talyaani iyo arxan daran oo la oran jiray Mario Di Feg oo ninkii sandanadii ina Kennedy burburiyay ahaa dhulka Soomaalidana dhibaato badan ka geystay yaa wadanka soo galay ninkaasu nin wax badan laga qoray buu ahaayo nin Liibiya dhibaato badan ka geystay buu ahaayo asaga iyo nin gacan yaro u ah oo Soomaalidu ay dib daldalool uga bixisay balse la oran jiray Franco Carola labada nin baa dalka aad dhibaato badan uga geystay mas'uuliyiin ciidan oo sandaladii ina Kennedy ka fakaday oo Cumar Samatar u horeeyo iyo niman daraawishi ka soo noqday oo Abshir ninkii la oran jiray Abshir Dhoore Xasan iyo ciidan ay aruursadeen yaa Mareexaankii wuxuu dalcay inuu raaco liya Talyaaniga lagu duulayaa geelle markaa tilaabo qaaday Mareexaankii kale oo aysan ku dhiiran oo ah in ciidamada is aruursaday iyo Mareexaan la kala reebo oo Mareexaanku asagu taladiisa gooni u yeesho siyaasadaha aysan ku milmin nimanka la oran jiray Talyaanigana ay la saxiixdeen heshiiskaas oo Protectorate in la isnabadgeliyo in Mareexaanku aysan ka qayb noqon rabshadaha Talyaaniga lagu kiciyay in dagaalada Ethiopia xaggeeda ka soo jijiira Mareexaanku aysan ku milmin in Mareexaanka Talyaanigu nabadgeliyo dantooda iyo xoolahoodana ay u qabaan waagi awood yeeshaan ay dawladda wax la qaybsan doonaan inta ka horeysa la kala qaato nafis dhowr sano nafis Allah ilaahay heshiiskaasu sida lagu garaabay oo mar dambe odayaashii Mareexaan ay sheegeen wuxuu ahaa heshiiskii Mareexaan qaata kii ugu qaboobaa waayo wuxuu ahaa waqti kala jaban ah dadka qaarkood ay u xusuudubayeen in dagaalo sokeeye iyo kuwo dawladeed oo aan Mareexaan dan u ahayn la gasho isaguna uu ka mid ahaa dadkii hawsha ka gabangaabsaday isla markaana ku hagoogtay inaan lagu milmin isdiidooyinkaas siyaasadeed oo xilligaa taagnaa waa waqti hadda laga joogo 101 sano ka hor geela waqtigaasuu soo caamaha waa si wanaagsan waxaad moodaa geella isagoo yar inuu ahaa nin xeer beegti ah ama xidaar intaynaan ka gudbin halkaa garta iyo dhaqanka ugaas waxaad inoo raacaysaa sheekadii caanka ahayd ee uu ninka ogaadeen yidhi geelle maluugna ma keena cabdallow geela waa saa sheegtay asagoo yar buu ku biirayay hibada garta iyo muftida waxyaabaha uu magaca dheer ku yeesheen waxaa ka mid ahayd garista naqista garta goynta garta xeer beegtinimada iyo dacwiga qaybihiisa kala duwan oo ku xusan gudaha garta dhaqanka Soomaalida weedha ninkuu yiri geela maluugna ma keena waxay ahayd garta dhaqanka Soomaalidu waxay ahayd dhowr qaybood waxaa jirta qayb uguba oo la yiraahdo maluug oo aan horey u jirin oo rag badan oo taariikhda ableeya sida ay sheegeen la aaminsan yahay in geela furo uu ku soo daray garta waa garta la yiraahdo maluugta waa gar aan gar walba gelin sida ragga gar aqoonta ah oo ay sheegaan kunkii garood bay hal mar gashaa tusaale maluugtu adiga iyo ninka kan oo kala galabta ceelka isku qabtay ama geedkii shirka isku qabtay waad isdirirteen afkaad wax badan iska tiraahdeen waa la idin kala jiiday oo ninba gees baa loo dira waa iska carruudo gurigaagaad ku carruuday adoo gurigaagii joogan yaa ninkaad isdirirteen oo soo caraabay yaa gurigaagii soo hormaray markii hore gurigaaga waa soo hormari jiray waday buu ahayd markuu ku dhaafay buu soo xasuustay in maanta kala qabashadii iyo miririgtii warankiisii ama qorigiisii ama wixii asaga xilligaa hubka u ahaa uu soo iloobay markaasuu mar labaad isagoo soo rogmaday ku soo hormara oo inta ceelkii iyo geedkii galabta shilku ka dhacay u noqday qalabkiisii soo qaato oo isagoo warankiisii deelaysan ama qorigiisii jeeni qaarsan ku soo hormara mar saddexaad markaasaad shakida oo aad dib u gurata waxaa kulmay inidkoo diriray
iyo isagoo 3 jeer gurigaagii hormaray iyo isagoo markii u dambeeyay hubaysnaa subaxii baa ninku geedka tagaayo intii uu xal arkay sheegaa kiina markaas loo yeeraayo la warsadaayo wuxuu sheegaa in wax qadar ilaahay ku dhacday ay ahayd walaalkii wiilwaal ka yiri maxaa dibiga naasa adag iyo weedha kulansiiyay oo halkaas garta la istiraarsiiyaa gartaas hore xeer umadahay ummadana uma soo maray waxa la sheegay iyadoo ugube gartu waa cunad iyo ugube iyadoo ugube inay dhacday inay geela liibaan la hordhigay inuu magacaan maluugta la yiraahdo u baxshay kadibna la yiri maluugeen la adaa baxshay maxaa u daawaa kitaab baa u daawaa in la iskitaabeeyo ninkii qoriga watay oo sida uu sheegay isagoo wuxuu soo hilmaamay 2 jeer meesha u marmaray kitaab la marsho midkan shaki oo laabtiisa ka dadayna kitaabkaas ku daawoobo geela waatu yiri waa maluugna kitaab baa u daawaa sidaas ay ku baxday nin ogaadeen oo gar aqoonaha la yiri gar maluug la yiraahdo la keena oo yaa keenay bal nin marxaan oo geela liibaan la yiraahdo oo muxuu ku naqay kitaabku ku naqay bali wax badan baanu ka sugnay geela maluugna ma keenay marka weedhaas halkaas ay ahayd waxa la sheegaa inuu garta aad caan ugu ahaa naqisteeda rogideeda doodisteeda dacwigeeda waxa laga sheegaa weedha weligeeni baan wada hadalnay labadiisii kabad ma wada qaadan alashan kabu iloobu yirmo marka in aad cabqari u ah waana ninkii kale waatu yiri hadii geel la yiri alla yiri garbu naqayo saan la yiri gartii waayadan la isku hayay geela loo geeyo geelana sidaas u naqa ma kitaabka ilaahay baa daadi baa lii marka hadii geel la yiri alla yiri marka nin sidaa ku ah garta iyo naqisteeda iyo xeerarkeedu ahaa aadna ugu caanbaxay dhanka kale nin wuxuu ahaa mufti badan oo wax la weydiiyo oo waatii sheekadii haddaba mar la iga warsanayso ahayd markuu gobta kala saaray oo sheekadii gobta sheekadii gobta markuu ka waramayay waa sheekada ugu weyn ee maanta Soomaalida dhulkeeda marka gob la iska warsado la soo qaato geel la gob ka waran baa liiri oo gob waa 5 buu yiri 5 weeye gob waa 7 oo waa sooriyo oo waa soof oo waa sow oo waa samir buu shanta gobta uu kala qaaday intayna ka gudbin bulshada jeedkii geelle u jilcay haddaynu sii jilcino gob waa 7 oo heerka gobta ah sabada iyo dhulku degan yahay laga gartaayo meel dhulka meesha uu cabin degaa haddii ninku gob yahayna gurigiisa guriga ka qurux badan yahay gob waa 7 gob waa sooriyo oo qabiilku hadduu gob yahay iyo haddii qofku gob yahay waa wax bixin gobonimada sharafteedu waa wax bixin haddaan meesha waxba lagu bixinaynin gobonimo ka dhimatay waa sawd oo heerka gobta husowd waa hadalkooda wacan ninka gobta hadalkiisa wacan ma degdegaan waatii la yiri ninka gobtaahu iyo ninka guntahay maxaa lagu kala labada hogaamiye ninna gobta yahay ninna gunta yahay maxaa lagu kala gartaa baa la yiriyo maalinta la isku huburursado hogaamiyaha gobta oo reerka gobtaan hogaamiyaha ah waa ninka yiraahdo naga dareer kan guntaana waa keeba gees la gelin la weydiiyo waa midka yiraahdo nagu dareer galab waa solbiyo soodkooda wacan tan ugu dambaysa wuxuu yiri waa samir gob waatay samirta الله إله wax alla wixii loo geystay ka samirta qora la weydiiyo reeraha marxaanka oo waxa la yiri wareer geelo wadii ninku xogaa yar ka dhasho ninka loo oran jiray cudaduna gasho sidee baasha looga saaraa wuxuu dhimayna waa laga dhaafaa baa liiyo wuxuu dhimayna waa laga dhaafaa wixii loo dhimayna waa laga dhaahiyaa marka goobtu waa tan samirta wax alla wixii ku dhacay wixii loo geystay ehelnimada iyo tulnimada ka doorbida magaraysa marka goobta waa asaga sida u kala saaro inuu gobo waa saba iyo sooriye iyo sawd iyo soof iyo samir shanta soof waa inay 40 miir xoolaad wax ka haysato inaba hal ekaatee sabana waa inay dhulka meesha ugu wacan ay degan tahay marka maxaa goboodu waa maxay baa marka goboodu waa maxay bal shanta hadii la waayo maxaa gobo ah goboodu wuxuu waa sooriye iyo samir waxay hayaan inay baxshaan waxay waayaan ka samraan
gob sidaas u kala saaray geelle nin la oran jiray geedi mictiir oo ciidaha kan habar gidirta oo aynu dariska nahay ah baa la yidhi geediyow geella ka waran geelle waana wiil nabsibi waana niman laga gayooni waa laba erayo cajaa'ib ah Soomaaliga dhexdiisa waana wiil nabsi waana niman laga gayooni marka ninkaas nin aad iyo aad u caanbaxay buu ahaa geel ka waran waa tii la yiri oo la yiri qolaasho unta qolo uusan geel badan ku haysan baa inta ciidamadii Talyaaniga wax qolato lacag soo qaadatay oo beledweyne iyo Shabeelle tagtay geel soo gadatay oo suuq xageebay ka keenay lacag bay kala soo bixin baa laba aaminsan geel lacag laga soo bixin karo geel waa geel bi wixii gooyana waa geel maamaha caan ah dadka dhexdoodana si weyn loogu isticmaalo loo adeegsado oo suugaanta Soomaalida iyo halqabsiyadeeda waliba geela markii la macnaynayo waxa ugu sareeyo geel la gaarsiiyo marka aayadaha quraanka ay baxagiisa suurata ninka loo oran jiray khaashaca la yiraahdo ee ba ku sheegay marka laga yimaado af Soomaaliga mahmaada ugu weyn weeyo oo geel waa geel wixii gooyana waa geel geelu sidiisu geel ku yahay hadii la gadayo iyo hadii wax qiimihiisa ay jiraan waa geel kala warkaas ma ku dhaca si wanaagsan maamaha asaga dhitay marka asaga dhitay Allah ilaahay isaga dhitay oo hadii alla ku soo ogal yahay laga qaatay waxaan malaynayaa Axmed Faarax Ali Ciidajaba markii uu riireeday mudasha maamada soo geelali baan ku sheegay ka sidaayay mar maamahayada iyo cid tirisay uu sheegay inta la aqoonsan yahay waxa la yiri geelow taajir quruxdu waa maxay ninku hadduu xoolo qaban yahay oo xiriyo u buuxaan oo rag dhalo oo reer magac ka dhasho waxa qurux u ah بحبهم تاجر قروحدي داق كما سو هادو غبا يالك او دمتay waa deeqda faqiir quruxdi ka waran baad faqiir quruxdina waa samir buuyirugo waa inuu ka doo faqri yahay oo cayr yahay hadana uu san samreeno iimaan kala yahay halka ceeb flo ceeb waa taa marka ninka loo oran jiray faqiirka quruxdina waa samir marka maamahayada kale oo hadaynu horay ugu sii soconno geelle asagu iska lahaayo loo aqoonsan yahay waxa kamid ah maamada la yiraahdo saddex waa lagu koraayo kor u guurso iyo kor weyn raro iyo kor u guur saddexdaas waa lagu koraa geella laga hayaa suugaantiisa markaad fiirisid iyo maamahayada isagu leeyahayna oo waliba Soomaalidu ay adeegsato isla markaana aynan garanaynin cid iska lahayd aad bay u badan tahay marka malahayga ninkaasu marka la soo koobo hadii laba eray lagu sheegay ninka ay labada reer oo isxay waliba ka dhasheen baa horta labadii eray ugu wacajibsan ku sheegay wuxuu yiri waa wiil nabsiyo niman laga geeyo intaas aqoon ugu filan intaynaan ka bixin maamaayihii geela liibaan cabdili geela faruur waxaad noo raacaysaa mid kale oo ayaduna aad bulshada dhexdeeda caan uga ah oo tiraahda geelow maxaa barbara ku geeyey oo isaguna yiri faduul bal sida ay ku timid ayadana inoo raacay sida la sheego geelle maamaayo badan buu lahaa maamaadii aan hore ku soo xusnay oo ninkii Cali Guuleed loo oran jiray uu yiri wargeel la maanta ma ninka Talyaaniga ayo eeyga watay yaa noo wadayo leedahay leeshiyo oo yiri Cali oo muraadka mas'uuliyiina waa loogu sixdaa ama muraadka maqaar ayna waa loogu sixdaa oo asagu lahaa maamaha kala jirtay oo uu yiri laf dhuux leh iyo laba dhagax waa la isla waayay isagoo qolo u qusgoynaya waxa kala u hanqal taagaysa waxa meesha oo alayla maamaayada laga hayo waxa kamid ah baadinima lahayn bay ag joogtaa baadinima wuxuu arkay in aad u geel badan aad u xoolo badan oo malaayga naag aan qurux badnayn qaba iyo nin cayraho meel uu ka keenayba gabar qurux badan xalaystay oo bal cabdo baadinima lahayn bay ag joogtaa weerna ah oo Soomaalidu aad dhexdeeda caan ugu ah iyo iska lahaa wuxuu iska lahaa ninka loo oran jiray maamada la yiraahdo tukan nasiib caano ku helo waa leeyahay laakiin nasiib caano ku dhamo malahan geelow maxaa barbara ku geeyey yaa la yiriyo waa sida aad sheegtay oo faduul buu yiriyo ayada sheekooyin badan baa laga wariyaa oo uu ku yimid mar waxaa la yiraahdaa baayac mushtari buu aaday meesha oo
haddana waa lagu xirayo xilligii ingiriisku meeshuu gumaysan jiray bay ahaydo isagoo baayac mushtarigiina wadan lasoo xiraynayuu soo noqdayo markaasaa layiri maxaad berbere ka doontayo waa faduul baan berbere u doona marna waxaa la sheegaa ninay dhanka hooyada ay habreewadaa ka ahaayeenoo reer berbere ah iyo waxay meesha isku arkeen oo ku kulmeenoo hangeelaba ka fili warmageela maxaa berbere ku keenay faduulba ay keentay labadaasibaa loo sheegay labadaasiba waa loo wariyey mahmahyada markii uu kulligood haddii eebba ku idmayo laga soo xiganayeyna wax bulshada dhexdeeda ah ama rag ay isku xigto ahaayeen ama waxa markaa waaqaca bulshada ama ninkii la odhan jiray sooshyaalka dhexdiisa ka taagnaa waayaha bulshada waayaha dhexdiisa yay ku imaanayeen waxaana la oran karaa waa mahmaayo waqtigu keenay inta badanna culimada ku takhasusay afafka iyo raadraaca ummadaha ummad walbaba heerka curinta falsafada afkeeda yaa wuxuu muujiya heerka xadaaradeed ay gaarsiisnayd iyadu aqoon ahaan marka ilanin ilbaxaho waayo aragaho haddii alla ilahay la rogrogo aan laga gayoonaynin halkan aan ka sii dayn doono mahmahyo badan oo asagu leeyahay kuwa loo ogyahay iyo kuwa aan loo ogeyn kuwa soomaalidu ay siyaabo kala duwan u adeegsato oo haddii eebba kuusan ogal yahay aysan garanayn cidda iska lehna waynu soo bandhigi doonaa haddii ilaahay idmo waa tahay ugaas aad baad u mahadsan tahay ninka la yidhaahda geelaliiban cabdille ma ahan taariikhdiisu nin aan barnaamij ama labo aan ku soo koobi karno waa nin aan laga gayoonayn waa bad aan xeeb lahayn haddii aan la yidhaahdo waxaynu ka dhigan doonaa ama barnaamijyada dambe ku soo qaadan doonaa mahmaahyihii kale ee laga diiwaan geliyey iyo gabayo badan oo soomaalida dhexdeeda caan ka ah oo geela lahaa halkaa waxaa caawa noogu eg barnaamijkeenna qaybtiisii koowaad Langab ku taaloy